Soomaaliya gobernadorka hawl badan soo qabatay Djibouti wax badan u dhaxaysa dalalka Djibouti sidoo kale maamulka gooni-goosodka ah ee Somaliland dhawaana kadib shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee degdega ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ee dalbatay laga hadlayay xadgudubka Israel ee maamulka Somaliland aqoonsi ku siisay dowladda Djibouti waxay halkaasi ka jeedisay isla markaana danjiraha dowladda Djibouti u fadhiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu jeediyay khudbad aad u adag oo kaga hadlayay sida ay muqaddaska u tahay midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya isla markaana looga baahan yahay caalamka inuu u tixgeliyo isla markaana uu ilaaliyo kadib khudbadaasi maamulka Somaliland waxa uu markaasi dareemay in dowladda Djibouti ay si weyn uga soo horjeedo aqoonsi kasta uu helo maamulka Somaliland dowladda Djibouti ayaa hadalkeedii adkaa ee qaramada midoobay kadib waxay qaaday tallaabooyin ficil ah oo ay ku muujinayso sida ay u daneynayso madaxbannaanida Soomaaliya in markaasi la ilaaliyo Djibouti ayaa gabi ahaan albaabada isugu laabtay qunsuliyadii ay ku lahayd magaalada Hargeysa isla markaana uu wactay qunsulkii halkaasi u fadhiyay waxayna baasaboorradii kala laabatay madaxda maamulka Somaliland iyadoo shacabka Somaliland u diiday warqadihii ay ku gali jireen gudaha dalka Djibouti marka ay u safrayaan iyadoo ku amartay in madaxdan ay qaataan baasaboorka Soomaaliga oo ay ka tirsan yihiin shacabkana ku amartay inay soo qaataan warqadaha Soomaaliya si markaasi gudaha Djibouti galitaankeeda loogu markaasi ogolaado Djibouti ayaa dhanka kale qaaday tallaabooyin militari iyadoo ciidamadii ugu badnaa iyo sidoo kale baabuurta gaashaaman iyo hub aad u culus keentay xadka maamulka gooni-goosodka ah ay la wadaagto taas oo sare u sii qaaday xiisadda labada dhinac mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa dowladda Djibouti oo ka hadlayay isla markaana khudbad u jeedinayay ciidamada ku sugan xadka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca maamulka gooni-goosodka ah ee Somaliland waxa uu sheegay in Soomaaliya abaal weyn u gashay isla markaana waqtigan looga baahan yahay Djibouti ay u guddo abaalkii Soomaaliya ay u gashay ayna taageersan tahay midnimada iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada dhinac ayaa u muuqata in xiisadooda ay cirkaas ku sii shareeraysa iyadoo xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dhinac ay marba marka ka dambeysa sare sii marayso waa hagaagadeenu halkaasi kaga nimaano xiisadda Djibouti sidoo kale maamulka gooni-goosodka ah ee Somaliland markana dalal dhowr ah ayaa waxaa markaasi soo baxaya in ay maamulka Somaliland baasaboorkiisa aqoonsadeen isla markaana ay ogolaadeen in baasaboorka Somaliland lagu dalban karo fiisaha dalalkaasi waxaa dalalkaasi kamid ah Malaysia iyo sidoo kale dalka Nepal iyadoo Nepal iyo Malaysia habeennimadii xalay ahayd markaasi lagu arkay website-yada dalalkaasi ee fiisaha laga dalbado inay ku soo dareen maamulka Somaliland isla markaana taasi ay ka dhigan tahay inay aqbaleen ama aqoonsi ay siiyeen maamulka Somaliland walow si markaasi shaacsan ay ugu dhawaaqin laakiin website-yada laga dalbado baasaboorka markaasi ama fiisaha dalalkaasi ayay ku soo dareen maamulka Somaliland in baasaboorkiisa lagu dalban karo fiisaha dalalkaasi taas waxay markaasi keentay in dad badan oo Soomaaliyeed ay si weyn uga caroodaan isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay ku cadaadiyaan in ay qaado tallaabooyin ka dhan ah dalalka Nepal iyo Malaysia dalal kale oo dhowr ah oo ay kamid yihiin Bangladesh iyo Hindiya ayaa la filayaa inay ku soo biiraan dalalka aqbalay baasaboorka maamulka Somaliland waxaana taas ay muujinaysaa in ay markaasi maamulka Somaliland uu helayo aqoonsi dadban oo dalalka caalamka qaarkood uu ka helayo Bangladesh ayaa waxa dad badan oo Soomaaliyeed ay sheegeen inaysan suuragal ahayn inay aqbasho baasaboorka maamulka Somaliland waqtigan taas oo u sababeeyeen in markaasi Bangladesh aysan marnaba xiriir la lahayn maamulka Israel taana ay keenayso inay ka gaabsadaan aqoonsiga Israel iyo sidoo kale inay ku daba faylaan Somaliland ayaa dadaal badan ugu jirta sidii ay dalal kale aqoonsi ugu heli lahayd isla markaana maamulka Israel ay aqoonsaday dalal kale ay ugu soo biiri lahaayeen Malaysia iyo Nepal ayaa durba aqbalay isla markaana ogolaaday in baasaboorka Somaliland lagu tagi karo dalalkooda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laga yaabaa inay ku guuleysato in Malaysia ay ku qanciso inay ka laabato go'aankaasi isla markaana ay tixgeliso madaxbannaanida iyo qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya walow Malaysia ay kamid tahay dalalkii Soomaaliya sida weyn ay markaasi u taageertay waqtiyadii dagaalada ay ku jireen haddii aynu markaa halkaa kaga nimaano dhinacaas iyo dadaalada maamulka Somaliland iyo dalalka aqoonsiga dadban u fidiyay markana dhinacaas iyo magaalada Cerigabo iyo gobolka Sool magaalada Cerigabo waxaa ka taagan xiisad aad u xoogan tan iyo markii maamulka Somaliland uu ku dhawaaqay inuu helay aqoonsi magaalada Cerigabo oo muddooyinkii horeba ay ahayd markaasi magaalo xiisado iyo colaado ay hareeyeen
ayaa hadda wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisado colaadeed oo aada u xoogan taasoo u dhexeysa maamulka Somaliland ee gooni-goosadka iyo sidoo kale maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo isagu doonayo inuu qayb ka ahdo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu dadaal xoogan ku bixinayay sidii uu gacan ku haynta magaalada Cerigabo ugu soo ceshan lahaa isla markaana maamulka Somaliland halkaasi uga saari lahaa. Dadaal badan iyo sidoo kale dhismaha ciidamada maamulka waqooyi bari oo waqti badan la geliyay kadib waxaa ciidamadii ugu badnaa loo dhaqaajiyay dhinaca magaalada Cerigabo iyadoona dhanka kale taageero ka helayo maamulka waqooyi bari Soomaaliya beelaha warsangeli oo iyaga laftirkooda daneynaya in magaalada Cerigabo laga saaro gacanta maamulka Somaliland ee gooni-goosadka. Cerigabo ayaa hadda waxaa duleedkeeda degan ciidamo aada u fara badan oo kasoo kala jeeda beelaha warsangeli iyo sidoo kale maamulka waqooyi bari Soomaaliya. Beesha markaasi dhulbahante gaar ahaan Naleye Axmed ayaa isagu waxa uu halkaasi geeyay ciidamo aada u culus kuwaas oo uu doonayo inay qayb ka noqdaan duulaanka lagu qaadayo magaalada Cerigabo si looga saaro gacanta maamulka Somaliland ayaa dhankeeda ciidamo iyo sidoo kale saanad military kusoo daabulaysa magaalada Cerigabo iyadoona dhanka kale maamulka Somaliland uu dadaal xoogan ku bixinayo sidii uu difaacan lahaa magaalada Cerigabo ee xarunta gobolka Sanaag. Guud ahaan gobolka Sanaag ayaa u muuqda inuu dhex maquranayo mowjado colaadeed oo aada u culus kuwaas oo u dhexeeya maamulka gooni-goosadka ee Somaliland iyo sidoo kale maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo taageero xoogan ka helaya dowladda federaalka Soomaaliya. Xiisada u dhexeysa Somaliland iyo sidoo kale waqooyi bari ayaa u muuqata in marba marka ka dambeysa ay cirka isku sii shareerayso. Taas waxaa markaasi dowladda federaalka Soomaaliya u muuqata in dhankeeda ay taageero xoogan siinayso maamulka waqooyi bari Soomaaliya si gacan ku haynta gobolka Sanaag iyo deegaanada maamulka Somaliland waqtigan uu ka arrimiyo Sool iyo Sanaag looga saaro gacantiisa. Dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa daneyneysa in dhinaca gobolka Awdal ay taageero u fidiso dadka deegaanka haddii kacdoon xoogan oo ay kaga soo horjeedaan Somaliland ay bilaabaan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dooneysa in diblomaasiyad ahaan iyo sidoo kale military ahaan bay u godoomiso maamulka Somaliland gaar ahaan beesha dhexe oo iyada dadaal xoogan ugu jirta sidii goboladaasi dal madax bannaan loogu aqoonsan lahaa walow hadda aqoonsi hordhaca ay ka heleen maamulka Israel taasoo suuragal ay tahay in waqti kasta ay wax walba isbedeli karaan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaana u muuqata in dhankeeda ay dadaal kasta ku bixinaysa sidii uu u fashilmi lahaa isla markaana loo fashilin lahaa aqoonsiga maamulka Somaliland la sheegay inuu ka helay maamulka Israel. Xiisada u dhexeysa Somaliland iyo waqooyi bari ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraysa iyadoo hadda ay Jabuuti kusoo biirtay xiisada. Somaliland ayaa taageero xoogan ka helaysa maamulka uu hogaamiyo Siciid Cabdullaahi Dani ee Puntland iyadoona taageeradaasi kaliya dadka reer Puntland ay ku sheegeen inay ku kooban tahay Siciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale xubnaha maamulkiisa ka tirsan laakiin shacabka ay qabaan aragti guud oo ah ilaalinta midnimada iyo qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laakiin Dani